السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقال كتضبط يتحنه إني برشة HTML و CSS. قيبي هوري تحنها وحن كقصها الله HTML elements كله استعمال كبدني هي يوحي بدون HTML كقصابصن. قيبها تنبيه تحنها أو هوري مقال كنا حن كجهل الدونا CSS تا يقاب كله قرحيو element يدي يوحي بيه نص صارقني HTML كها. اوكي سادو qorto markaasi course CSS waxaad adeegsan kartaa maad u qori kartaa saddex hab oo kala duwan habka koowaad waxa weeyaan inaad adeegsato elementiga loo yaqaano style oo aad ku dhex qorto markaasi code-ka CSS ka elementigan style ka markaa code-ka ku dhex qorto kaliya wuxuu qurxin doonaa elementiyada maxay ku jira file-kan oo kaliya ayuu qurxin doonaa oo elementiyada HTML ka file-kan ku jira oo kaliya ayaad ku qurxin kartaa code-ka halkan aad ku qorto habka labaad ee la adeegsado waxa weeyaan inline style ka waxa loo adeegsadaa attribute kan la yiraahdo style kadib ayaa code-ka lagu dhex qoraa marka aad inline style adeegsato kaliya waxaad wax ka bedel ku sameyn kartaa ama aad qurxin kartaa hal element yani elementiga aad ku dhex qortay attribute ka loo yaqaan style ka ayaad wax ka bedel ku sameyn kartaa ama aad ku qurxin kartaa habkaasina waxa loo yaqaanaa inline style habka saddexaad oo habka loogu adeegsiga badan yahay ama loogu isticmaalka badan yahay waxa weeye in aad sameyso file-kaasi magaca doonta aad la bixi kartaa .css kadibna file-kaasi aad ku dhex qoraysaa code-ka intiisa kala oo dhan okay haddaba si markaasi elementiga HTML-ka aad wax ka bedel ugu sameyso waxa la adeegsadaa waxa la yiraahdo selector yani in aad elementiga aad doonayso wax ka bedel ku sameyso ayaad soo dooranaysaa kadib ayaad qurxinaysaa selector-kaasi markaasi waxa weeyaan wuxuu kala baxaa saddex qaybood waa in habka koowaad oo ah in aad maxay elementiga magaceeda وانا habka ugu fudud elementiga haday tahay h1 haday tahay div haday ay tahay img tag oo image habkaas ayaad ugu yeelaysaa magaca elementiga ayaad u yeelaysaa kadib ayaad qurxinaysaa selectorka labaad waxa weeye inaad adeegsato selectorka loo yaqaan class iyo selectorka saddexaad oo ah inaad adeegsato id okay hadaba labadan si aad u adeegsato waxaad u baahan tahay classka iyo id-gaba in aad qaybaha aad doonayso inaad wax ka bedel ku sameyso ama elementiyada aad doonayso inaad qurxiso ayaad marka hore soo siinaysaa ama aad ku soo qoraysaa classka iyo id-ga ayaad maxay magacyadooda ayaad ku soo qoraysaa okay si aad ugu soo qorto waxaad imanaysaa elementiga aad doonayso wax ka bedel ku sameyso haddii aad doonayso class kaliya waxaad qoraysaa class soo inaad adeegsato elementigan inaad qurxiso adoo adeegsanayo class tusaale ahaan marka aad doonayso inaad elementiga qurxiso adoo adeegsanayo class elementiga ayaa waxaad ku dhex qori doontaa attribute ka la yiraahdo class kadib magaca classka ayaad ku qori doontaa marka aad doonayso inaad elementiga qurxiso adoo adeegsanayo id-na waxaad ku dhex qori doontaa id ayaad qori doontaa attribute ka loo yaqaan kadibna magaca id-gaasi marka aad CSS ka ku dhex isticmaalaysana classka waxa laga horeysiiyaa dot-ka ayaa laga horeysiiyaa kadibna magaca aad classka soo siisay halka id-gana laga horeysiiyo afar geesta calaamada hashka loo yaqaan ama afar geesta laga horeysiiyo kadibna magaca id-gaasi okay saddexdaasi hab ayaad marka elementiga aad ku soo dooran kartaa elementiga aad doonayso inaad qurxiso saddexdaasi hab ayaad ku soo dooran kartaa waxaan loo yaqaanaa selectors CSS selectors ayaa loo yaqaanaa okay code-ka marka halkan aan ku qornay si HTML file-ka markaasi uu soo akhristo oo isbedelkaasi uu soo muuqdo waxaan sameyn doonaa waan ku soo link gareyn doonaa waan ku soo xiri doonaa si file-ka marka CSS ka ugu soo xirno code-kan oo marka hore aan sii qoray oo comment ku qabtay ayaan comment-ga qaadi doonaa waxaad qori doontaa link ayaad qori doontaa kadibna tab ayaad taaban doontaa linkiga marka waxa raacsan si automatic waxa u raacsan labada attribute ee la kala yiraahdo rel oo loo soo gaabiyay relation iyo href relku markaasi waxa weeyaan xiriirka ka dhaxeeya file-kan CSS ka iyo file-ka aad doonayso inaad ku soo link gareyso xiriirka ka dhaxeeyana marka wuxuu noqon doonaa style sheet okay href ka marka waxaad ku dhex qori doontaa file-ka halka uu yaalo iyo maxay ahaday formatkiisa ayaad ku dhex qori doontaa imika file-kan index.html-ka iyo CSS-ku waxay yaalaan isku meel ayay yaalaan markaasi waxba kama horeysiin doono kaliya wax qori doonaa markaas waxba kama horeysiin doono kaliya wax qori doonaa magaca file-ka oo style .css ayaan qori doonaa okay marka hore marka comment ayaa saarnaa commentiga waan ka qaaday imika haddaan save raacdo isbedelka waad aragtaa inkastoo imika waxaan aad u sii qurux badneen haddana waa isbedelkii ama code-kii CSS-ka aan isticmaalnay ayaa isbedelkaasi sameeyay okay markan waxaan isla eegi doonaa properties-ka la isticmaalo CSS-ka properties-ka markaasi waxa la yiraahdaa code-ka halkan ku qoran waa intan hore waxa loo yaqaanaa property inta dambana waxay noqonaysaa value-ga property-ga soo wato
okay property-da loogu isticmaalka badiyay marka waxa kamid ah property-ga loo yaqaan background soo kale background color nood u qori kartaa habkan oo background color ah ay u qori kartaa kadibna waxa siinaysaa maadaama background color-kan ku bedelayno background-kiisa color-ka ay siinaysaa color-ka laba hab ayaa u siin kartaa in aad isticmaasho habkan koowaad oo ah oo loo yaqaan hexadecimal in aad isticmaasho hash kadibna nambaro iyo xarfo isku jira tusaale marka halkan waxay noqon karaan 6 digits waxay noqon kartaa xarfo ay noqon kartaa tusaale f haddaan raado 6f safe haddaan raado in waxba halkan lagama arko yacni background-kii iyo waxaa isku mid noqday iyo qoraalkii ayaa white isla wada noqday marka wixiiba white ayaa isla wada noqdeen ma arkayno marka waan ka bedeli doonaa waxaan color kale ayaan siin doonaa tusaale ahaan waxaan siin doonaa ff40 oo casaan ah safe and round marka labada hab ayaa loo siiyaa in magacaad ku qorto inaad hexadecimalkaada adeegsato ayaad colorada u siin kartaa okay property-ga kale ugu caansan la adeegsado waxa kamid ah color-ka waxa weeyaan waxa adeegsadaa marka aad doonayso text-ga ama font color-ka inaad ka bedesho tusaale ahaan imka color-kan cadaan weeye tusaale ahaan imka color-kan sabab aragtaan waa cadaan oo yacni halkan ayaan waxaan color h1 ka waxaad color-kiisa ka dhigtaa cadaan ayaan tusaale white ayaan ku qoray hexadecimalkan waad adeegsan kartaa soo kale halkan haddaan imka tusaale labaad ku qoro oo h1 ka classkaasi h2 ga ah color-kiisa bedelo waxaan oran karaa color property-ga color raad qoraysaa kadibna labada dhibcood ama tab ayaad siin kartaa keyboard-kaaga kadibna waxaan qorayaa red ayaan ka dhigayaa tusaale sabab aragtaan color-kina uu isbedelay okay property-yada kale la isticmaalo waxa kamid ah property-ga loo yaqaan width-ka ee adeegsan kartaa property-ga width-kaasi markaasi waxaad siin kartaa pixels ayaad qiimihiisa ka dhigi kartaa tusaale haddaan imka raado 10 pixel oo kale ka dhig ama 100 pixel baan raaday ka dhig waad aragtaa sidoo kale waxaad adeegsan kartaa boqolli ayaad adeegsan kartaa percentage ayaad adeegsan kartaa oo imka haddaan raado 50 boqolkiiba ka dhig boqolkiiba 50 ka dhig haddaan raado waad aragtaan boqolkiiba 80 ka dhig haddaan raado tusaale imka safe waad aragtaan halkaasna waad adeegsan kartaa property-ga kale ugu caansan waxaa kamid ah property-yada ugu caansan waxaa kaloo kamid ah property-ga loo yaqaano height-ka property-ga loo yaqaano height ayaa kamid ah inta haddaan siiyo isna labada hab oo adeegsan karaa boqolleydana oo adeegsan karaa iyo sidoo kalena pixels oo adeegsan karaa waxa kale oo adeegsan karaa habab kale ama measurement kale oo badan oo la adeegsado ee jira marka maadaama muuqaalkan iska basic uu yahay labada hab oo baan arki doonaa muuqaalada kale advanced-ga ayaan ku arki doonaa measurement-ga iyo habab kale loo adeegsado okay imka aan raado tusaale ahaan 100 pixel baan iska raado safe and raado waa aragtaan height-kina uu isbedelay dhererka okay property-yada kale la adeegsado waxa kamid ah property-ga loo yaqaano border aan qoro kadib ayaan isla arkaynaa tusaalihiisa border kadibna border-ka ayaan siinaynaa inta uu la ekaan doono 10 pixel ba ka dhigan raado kadibna solid kadibna black property-ga marka border-ka waxa loo adeegsadaa in aad stroke aad ugu samayso ama hareeraha aad ugu samayso tusaalaha imka halka ka muuqdo oo kale in aad u samayso xuduud oo kale aad u samayso ka soocaysa elementiyada kale okay markaasi soo kale imka halka solid aan waxaan ka dhigi karaa dashed ayaan ka dhigi karaa safe haddaan raado ku aragtaan dash ayuu ka dhigay soo kale waxaan adeegsan karaa dots ama dotted ayaan ka dhigi karaa oo wuxuu noqday dots ayuu noqday ama dhibco ayuu noqday marka badanaa waa yaro foolxumo kuwan lama adeegsado dotka iyo dash lama adeegsado solid ayaa laga dhigaa haddii aad doonayso design noocaas oo kale ah halkaas ayaad u adeegsan kartaa okay soo kale size-kana waan weyneeyey size-kana iska yareeyo 1 pixel baan ka dhigo marka 1 pixel-ka aad looma arko 5 pixel baan ka dhigo safe okay property-yada kale ugu caansan la isticmaalo waxa kamid ah property-ga loo yaqaano border radius marka waxa weeyaan in hareeraha uu edge ka yeesho ama wareeg uu ka soo wareegto hareerahaasi okay aan qoro tusaalaha ayaan isla arki doonaa kadibna aan 10 pixel raado safe sabab aragtaan hareeraha ayuu kasoo wacday marka haddaan 10 pixel kasii badiyo 20 aan ka dhigo aad ayuu u soo wareegsami doonaa hareeraha ugu soo wareegsami doonaa sabab aragtaan haddaan doonayo tusaalaha circle ka wada dhigo goobo inaan ka dhigo maybe in aan intaa ka badiyo kolba wax ku xiran tahay qiimaha height-ka uu leeyahay iyo width-kiisa ay ku xiran tahay ama dhererka iyo balaca elementigaas ay ku xiran tahay haddaan raado imka 100 oo kale ka dhigo tusaale ahaan
waad aragtaan oo imka height-ka ku imka tusaale haddaan height-ka ka dhigo height-ka haddaan ka dhigo in yara weyneeyo haddaan ka dhigo 300 oo kale tusaale ahaan ama aan ka dhigoba 200 waad aragtaan tusaale ahaan board radius wax kale oo loo adeegsan karaa boqolin oo loo adeegsan karaa habkaas ayaana ka wanaagsan haddaan raado imka 50% ka dhiga haddaan raado waad aragtaan goobadii ayuu xogaa usoo yara dhaweeyey height-kan ku yara daro height-ka aan ku yara daranaado 150 oo kale tusaale ahaan aka goobadii imka goobada ayuu soo yara dhaweeyey marka goobada waxay ku xiran tahay height-ka iyo width-ka elementigaas ay ku xiran tahay saad uga dhigi lahayd okay property-yada kale la adeegsado waxa ugu caansan text align haddaan marka tusaale ka dhigo center oo kale tusaale ahaan safe qoraalku wuxuu iman doonaa centerka ayuu yimi sad aad aragtaan haddii aan qoraalka raado tusaale ahaan left ka dhigo kale haddaan raado safe leftida marka hore si automatic ayuu joogtay marka right aan ka dhigo right aan ka dhigana waa ka okay tusaalayaasha kale ama properties-ka kale la isticmaalo waxaa ka mid ah property-ga loo yaqaano margin-ku markaa wuxuu qabtaa in maxayda elementiga uu hareeraha kasoo durkiyo ama elementiska kale ku dhow haddii inline ay yihiin in aad xadido intay isku jirsanayaan masaafo ahaan ama hareeraha oo kale aad kala durjiso okay tusaalaha baan tuso marka hore margin ayaan qori doonaa 50 pixel markaan raado save saad aragtaan waa ka hareeraha afarta dhinac wuxuu kasoo durkay 50 pixel ayuu kasoo durkay okay marka saa loo qoro waa qabka ugu gaaban ee loo qori karo habab kale ayaa loo qoraa margin-ka macnaheedu marka waxa weeyaan haddaad hal value ka halkan aan geliyo afarta dhinacba value-gaasi si isku mid ayuu saameyn doonaa okay haddii aan adeegsado y axis-ka iyo x axis-ka xisaabta oo kale tusaale ahaan kor iyo hoos ama labada dhinac oo kale hadda tusaalaha aan raado imkana 100 halkan habkan waa loo adeegsadaa marka habkan waxa weeyaan 10 pixel waa yiri habkan marka waa loo adeegsadaa 100 aan raado safe habkan waa loo adeegsadaa oo marka qiimaha qaybta horena waxay saameyn doontaa ama isbedel ku saameyn doontaa kor iyo hoos halka qiimaha labaad ee aan geliyay inuu noqon doono dhinacyada yani waa y axis-ki oo kor iyo hoos ahaa iyo x axis-ki labada dhinac labada hareeraha ama jifutaha ahaa okay habka kale loo qoro margin-ka waxa kamid ah in afarta dhinacba aad xadido oo qiime kala gaar ah tusaale ahaan midig iyo bidix inaad laba qiimo kala duwan aad geliso ama laba masaafo kala duwan aad kasoo durkiso kor iyo hoosna sidaas oo kale marka sida aad doonayso waxaad adeegsanaysaa afar value ayaad gelinaysaa property-gan tusaale ahaan haddaan intan koobiyeeyo copy paste save okay inkuwanka waa kala duwi karaa habka markaa wuxuu u shaqeynayaa wareega saacadda oo kale tusaale ahaan wuxuu ka bilaabanaya kor sida marka tusaale ahaan circle-kan oo kale haddaan ku tuso wuxuu ka bilaabanaya kan ugu horeeyo waa kor top kadibna right bottom left yani habka saacadda ugu wareegto oo kale ayuu u shaqeeyaa marka value ugu horeeyo kor weeyaan marka haddaan tusaale aan yara badiyo ka dhigo ilaa iyo 200 oo kale tusaale ahaan safe aan raado kor ayuu kasoo durkay in badan haddaan imka raahdo aan ku soo celiyo 0 aan ka dhigo 0 pixel waa aragtaan xagga sare ayuu tagay qiimaha marka ku xiga waa anaga saacadoo kale ayuu u shaqeeyaa marka qiimaha ku xigana wuxuu noqon doonaa right ayuu noqon doonaa tusaale haddaan right raahdo 200 haddaan raahdo aan safe raahdo waa aragtaan dhinaca midig ayuu in badan kasoo durkay okay inta hore aan ku celiyo safe aan raahdo kaa kale ku xiga marka qiimaha kale ku xiga wuxuu noqon doonaa hoos ayuu noqon doonaa bottomka imka haddaan raahdo circle-kan ayaa hoos tegi doona haddaan raahdo imka 200 oo kale tusaale aan raahdo safe aan raahdo waad aragtaan yani elementiga kusoo dhawaa ee kusoo xigay xagga hoose ka jiray ayuu in badan iska fogeeyey ama uu ka fogaaday marka habkaasi ayaa margin-ka loo isticmaalaa haddaan imka raahdo left oo kale haddaan isla eegno oo aan raahdo 200 safe aragtaan marka waa ka property-ga marka loo yaqaano margin-ka habkaas ayaa loo isticmaalaa property-ga margin-ka waxa ay isku sii u shaqeeyaan oo in yar ay ku kala duwan yihiin property-ga loo yaqaano padding-ka property-ga loo yaqaano padding-ka in yar ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin wax kale ma aha halka margin-ka hareeraha elementiga dibadda waxa ka ah maxay masaafada u jirayo elementiga kale lagu xadido padding-ka waxa lagu xadidi doonaa markaasi elementiga dhexdiisa haddaan tusaale tuso inta baan copy paste halkan oo baan padding ka dhigi doonaa
padding safe. marka waad aragtaan gudaha ayaa markaa isbedelku ka dhacay. haddaan imika tusaale ahaan raacdo hal value keliya aan ka dhigo oo aan raacdo tan aan masaxo halkan aan ka dhigo content pixel oo kale tusaale ahaan haddaan ka dhigo 5 pixel aan ka dhigo content pixel haddaan ka dhigo si isku mid ah ayuu dhinacyada markaas ugu soo darka doonaa. okay imika markaa waad aragtaan paddingka haddaan hal qiimo siiyo iyo haddaan sidaa kalooga u qoro waa isku mid un. يعني wuxuu ku kala duwan yihiin marka aad doonayso hareeraha inaanay isku masaafo oo kale aanay noqon ayuunbaad isticmaalaysaa. tusaale haddaan imika aan raacdo halkan aan ka dhigo 500 pixel oo kale tusaale ahaan safe. qoraalkii waa qarsoomay markaa hoos ayuu sii galay waa kaa meel dhexe ayuu tagay. haddaan soo weyneeyo hareeraha ayuu 500 maxeeday ama egas accesska ayuu 500 padding kasoo durkay gudaha u durkay wixii ku jiray halka topki iyo maxeeday bottomkana uu yahay qiimaha halkan aan geliyay kontonka pixel. okay soo marka labadan maadaama isku si loo isticmaalo waxaa kaloo samayn kartaa mid ayaa u isticmaali kartaa hareeraha top margin top tusaale waxaad oran kartaa margin dash top kadibna qiimaha doonaysa ayaad gelin kartaa 10 pixel. soo kale waxaad oran kartaa margin copy paste and raado. soo kale waxaad oran kartaa margin right. soo kale waxaad oran kartaa margin bottom. soo kale waxaad oran kartaa agana rasaxo. soo kale waxaad oran kartaa margin left. okay save haddaan raado markaa isku si ayuu shaqeynaya. paddingka kale marka haddaan ku bedelo tusaale ahaan intan paddingka copy paste and raado si aan u muuqdaan markaan kala yara dedejiyo hoos aan kala yara fogeeyo. okay intan ayaa marka padding ayaan isticmaali doonaa. okay padding ayaan ku bedeli doonaa. save haddaan raacdo waxaan qalday pixelka ayaan isdaba mariyey s ayaan raaciyay raaday s ayaan raaciyay staas ayaan ka masaxi doonaa paste. save haddaan raacdo aka markaa 10 pixel ayuu paddingkii marginkii markaa habkaas ayaa loo isticmaalaa. marginka iyo paddingka waxyaabahaas ay qabtaan faa'iidooyinkooda waa intaa hababkaasina loo qoraa. marka propertieska CSS ku leedahay lama soo koobi karo aad ay u badan yihiin. laga yaabo mustaqbalka marka aan projectiyo kale aan dhisayno ama website aan dhisan gareyno inaan isla aragno propertieskaasi. okay marka maanta muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobayaa. muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.